soo dhawaada waa walaashin Uma Mansuur maanta waxaan rabaa videogan wuxuu ku saabsan yahay inaan isla wadaagno su'aal ay abaayooyin badan isoo weydiiyeen ama inta badan qof kasta markuu rabo tilaabo inuu qaado walwal iyo cabsi iyo walbahaar fara badan oo ka hortaagan oo wax iska caadiyo inay tahay. Soo dhawaada waxaan idiin hayaa mowduucaas wax ku saabsan. videogan kusoo dhawaaw gambarkaada soo qaada sheexaada saa jeceshahay ama adoo fadhiya ama adigoo maarshaqaysanaya labadaba waa kusoo dhaweynaa. soo dhawaada youtube channelkan waxaa looga hadlaa habka maaratay wax loo save gareeyo, habka budgetka loo sameysto. waxaan ku dhahay dhammaanteen isku hadaf ayaan nahay, isku hiigsi ayaan nahay, isku meel ayaan u wada soconaa. kulligeen doonta waan wada saarana, gabar walba meel ayay kasoo koraysaa, magaalo ayay kasoo koraysaa, laakiin kulligeen dad waxaan nahay isku wada hadafa oo isku wada halgan ah. youtube-kan waxaan kusoo gudbiyaa fiidiyoyaasha inta badan looga hadlo see wax loo dhaqaalaystaa, sidee maalgashi loo sameeyaa, maxay hooyada ay dhigi kartaa, maxaysan dhigi karinin, sidee wax loo maamulaa, because adduunyada wax walba maamul ayay u baahan yihiin. shayga ugu adag oo la maamulo maanta dunida aan joognana waa lacag, sababta lacagta maamul aad iyo aad u ballaaran oo muhiim u ay u baahantaa. ogaaw lacagtaada haddaadan si fiican u maamulin, adiga jeebkaada ayay ka jeeban tahay, oo mar walbo maamulkaadu xumaado dhaqaalahaadana wuu xumaanayaa. mar walba waxaa noqonaysaa qof bilaa lacag la-aana, mar walbana qof welwel ku nool. qof kasta oo tilaabo qaadayo cabsida wuu dareemaa. wuxuu qofka mar walba waxaa cabsado qofkii wax haysto. qofka hadduusan waxba haysan waxba kama cabsado, sababtaa markaa waxhaysatid ayay cabsi imaataa. waxaad ka cabsanaysaa waxa saacadaas gacantaada ku jiro aa haysatid inaa weysid. marka haddaadan waxhaysan cabsi ma imaanayso. marka cabsidu waa wax iska caadiya, waa wax dabiiciya. qof kastoo bili-aadan oo insaana ayaa cabsado. wuxuu u cabsanayaa sababta wuxuu haysto inuu waayo ma rabo. tusaale ahaan qof ayaa haysto $50, wuxuu rabaa inuu mashruuc ku bilaabo ama business ku bilaabo. wuxuu ka fikerayaa haddii aad guul daraysato $50 wuu kaa khasaara oo maxaad soo istaageen no eber zero aa kusoo dhacaysaa. sababta hadda $50 haysataa, 50kii business aa ku samaysa maalgashi wuu kaa khasaaray, zero yaa soo istaagtay. taas marka waxay keenaya qof kastoo bili-aadana wuxuu haysto inuu ka cabsaday inuu waayo. kaba soo qaad ninka maanta rabo inuu mashruuc ama business 5 milyan haysto rabo inuu ku sameeyo, wuxuu ka fekeraa 100 mar haddii aan mashruucan ku guul daraysto 5 milyan way iga khasaaray, meeshaasoo ah zero ayaan kasoo bilaabaa. marka inaad ka cabsato lacag yaroo 5,000 ama 10,000 ama 20,000 oo aad haysatid inaad maalgashi gashato oo dhul ku gadato oo sheer gadato waa wax iska caadiya. marka gabar walba waxay weydiinaysaa Uma Mansuur waxaan ka baqaa in lay dhaco, Uma Mansuur hadda ka horaa dhul layga dhacay, Uma Mansuur hadda ka horaa dhul xun la ii gaday, Uma Mansuur hadda ka horaa been la ii sheegay. waa wax iska dabiiciya inaa cabsato, sababto hore ayuu dhaawac kuu soo gaaray, hore ayaa u guul daraysatay, hore ayaa intaad dad aaminto wax gadataa wixii waxay noqdeen wax laysku haysto ama waxaan jirin ama wax meel duura ku yaalo. marka ma cabsidiyaan ku istaagaynaa? waa may. haddaa wax walba dhahdid waan cabsan, tilaabo ma qaadaya, dee waa horumar ma sameynaya, waa anoo noolaan isduuga ayaad leedahay. sababto qofka bili-aadanka wuxuu u baahan inuu horumar sameeyo, wuxuu u baahan inuu horusocod la imaado, wuxuu u baahan wixii shala dhacay inuu iska iloobo, laakiin uu cashiro ka qaato. shala haddii dhul xun la ii gaday, khaladaadkii aan shala sameeyey maanta inaan ku laabto. waddadii aan shala u maro waddo ka duwan waa inaan maanta u maro. dadkii shala ii gaday waa inaan raadsado dad kaloo ka fiican oo uga kalsoonaan karo. okay, gabdho badan waxay ku leeyihin Uma Mansuur aniga Soomaaliya qofna iima joogo, qof aan maanta ku kalsoona wax u dirsan kara iima joogo, ehelkaygana ma i caawinayaan, ama ayakiyaaba hunguriyeynayaan oo ayakiyaaba igu ahbo dadka koowaadoo horumarka ii ogoleyn. tilaabo marka ma qaadi karo, dhul ma gadan karo, wax ma samaysan karo. boqolaal dadaa jiro oo ayakoo dadkooda aan garab ka haysan horumar sameeyey, dhulal gatay, sheerar gatay. qasab ma ahan inaa faamilkaada wax walba kuu sameeyaan, qasab maa wax walba walaasha iyo walaalka inay kuu sameeyaan. ogaawna qofka shakiga badan, qofka maaragtay welwel oo go-aan qaadashada ku adagta horumar ma gaaro. go-aanka ka fikir laakiin go-aan saxa qaado.
laakiin inaa qof walba u aragtid inuu ku dhacayo inaa qof walba u aragtid wixii shala kugu dhacay inay maanta kugu dhacayaan taas waxay ku tusaysaa adiga iyo maaragtay yacni qadarta inaadan ku kalsoonayn qasab maa wixii shala kugu dhacay inay kugu dhacaan shala haddaa guul daraysato maanta ayaad guulaysan kartaa marka hooyada iyo aabbaha iyo walaalaha qasab maa inay dholalka kuu gadaan qasab maa inay sheerarka kuu gadaan boqolaal dad gabdhaa jiro oo faamilkoodii waddanka Soomaaliya joogo hanti fara badan Soomaaliya u taal qof faamilkooda ka midna uusan ogeyn hantidooda yaa u gaday laakiin dad Ilaahay dartiis isku barteen dad ay ku kalsoonaadeen dad ay tala saarteen sababta ani hadda maanta tusaale ahaan aan aqaano gabar fiican oo dhulalka ii gado oo si fiican iigu gaday oo gabdho fara badan u gaday ama aan aqaano nin fiican oo dadka dhulalka si fiican ugu gado oo amaanada iska ilaaliyo oo gabar walba dhulkeeda si nadiif ugu gado waa inaa aniga aan maaragtay gabar haddaa aan u sheego inay ku kalsoonaato ama sidoo kale gabar hadday ila wadaagto qof ayada si fiican u wanaajiyey wax fiican u gaday waa inaan ku kalsoonaada marka gabaray qasab ma aan inay waaridkaada ama walaalaha wax ku sameeyaan sababta markaas horumar ma sameynaysid hadday lacala kugu noqdaan kuwa ayakaba horumarka kula rabin kuwa ayakaba maaragtay ku dhahayaan lacagtan anakaaba u baansay dhul ugu gadane intay hebelaa saana ama hebelaa kana marka haddaa markii dadka ay saas yihiin adna aa ka cabsatid inaad dadka aaminto ama aa ka cabsato inaa waxa maanta aa haysatid ee kaa qasaaraan dee weligaa horumar ma sameynaysid adoo nool ayaa nolosha isku aasaysa marka adoo nool intaa nolosha isku aasi laheyd waxaa fiican inaad dadka aamintid inaa Ilaahay tala saaratid inaa istiqaaraysatid inaa go'aan ka qaadatid oo talaabada ah ku dhaqaaqdid because talaabo shaqa inuu qofku go'aan qaato aaday muhiim u tahay qof ayaa laga yaabaa go'aan uu maalin qaato noloshiisa dhan inuu bedelay uu si qurux badan ka dhigay qofna waxaa laga yaabaa go'aan uu maalin qaato noloshiisa dhan inay ay ku dhamaato ama noloshiisa dhan uu kala kulmo dhib iyo rafaad laakiin mar walba waxaa fiican inaa fikirtid inaad dad maaragtay role model raadsatid inaad raadsatid dad guulaystay dad sida adoo meesha adiga aad joogtid oo kale ana hadda Finland degana haddaan arko gabar ayadoo Finland degan dhulal gadatay dad fiican heshay dalaalin fiican heshay dad fiican ku kalsoonaan karta heshay dee waa inaa anigana aaminaa inay anigana dadka ay wanaajinayaan sababta dadkii hore way wanaajiyeen waxba kama faa'iidayaan inay aniga maanta ilu gooyaan midda kaleeto bili aadanku waa saa maaragtay u soo jiidato ama u kabs eraygu iigoy ama waa saa adig bili aadanka ka dhigatid because qofka markaa wanaajisid wuu ku wanaajin qofka markaa isbaratin wuu ku wanaajin maxaa bili aadanka walaal ka dhiga waa hunguri because qofkan markuu wax fiican kuu sameeyo haddaa wanaajisid oo wax fiican adigana aa siisid ma fahmaysaa kaba soo qaad dalaal wuxuu kaa qaadanaya $200 $300 uga dhigtay dee qofkaas berito uu si fiican uu ku wanaajinaa sababta qofkan lacag ayaa siisay dadka lacagta ayadaa walaalo ka dhigtay adduunkan nin walba maslaxad ayuu wataa adduunyadan maanta aan joogno waxa waa la isku danaysto adna danaa leeda adna danaa leeda dhexdaas kugu imaanayna nin walba marka dantiisa ayuu kan qofka kale ka gaaraa marka isku day inaad dantaada dadka kale aa ka gaartid si aad marka danahaada lagugu fuliyo inaa wax ogolaatid inaa wax dhiibtid aad muhiim ayay kuu tahay sababta haddaadan wax dhiibinin haddaadan wax ogolaanin dee danahaada ma kuu fultamaan marka inaa cabsatid oo walwashid waa wax iska dabiiciyo aniga marnaba idinma dhihin gabdhow lacagtiina inta qaadiin meelaadnan ka hubsan iyo qofaadan aqoonin iyo waxaadan ka fekerin ha ku gad kuma dhihin lacagtaada meeshay galaysa ka fikir qofkaa u dhiibanaysa ka fikir waxaa gadanaysid ka fikir intaadan gadan warbixin badan raadi baaritaan badan sameey maanta waqtigii la isdhacaayay ma ahan dunida way hormartay wax walba maanta maaragtay adiga iyo dadaalkaada ay ku xiranta intaadan xataa meesha dhulka ka gadan ogaaw meelaha dhulalka mise u kala fiican yihiin magaalo xamar hadda 110 ay noqotay maceelashaa ka gadane ma garasbaaleyaa ka gadane ma weydoobaa ka gadane ma iga dabageeyaa ka gadane boqolaal xaafadooda cusubaa soo baxay marka adi isku day inaa ogaatid waxaasoo dhan inaad daraasaad ku samaysid madaarisalaanaa ka gadanay ogaaw horta intaadan wax gadin baaritaan guud samey intaadan wax gadanin isku day inaa waxaa galaysid aa ogaatid ogaaw qiimahana ogaaw mar walbo qasab maa qofka hadduu qiimo kuu sheega inaa ku qanacdid qof iyo 2 iyo 3 weydii
baaritaan sameey markaasoo kaleeto waxaad awoodaa inaad horumar samayso. waxaan kaa codsanaa videogeyga haddaa ilaa intaan kusoo gaartay like-na ii saartid, commentina ka bixisid, sharena ii garaysid. sheerteyda aaday u yar tahay. sheerteyda youtube-ka wiigiba maruu wuxuu i tusaa daawashadayda, commentigeyga, like-teeda. sheerteyda iyo like-teeda aaday u yartaa baayooyinu. laba jeerada videogu waa fiirsanaysaa. haddaa like ii saartid waxba kaama ba-ayo, haddaa ii sheer garaysid waxba kaama ba-ayo. marka bal isku daya inay sheerteyda iyo like-teeda kor iigu soo kacdo. waa codsi walaaltinimo leh. intaasoo sano ayaa waxaan u halgamayaa 10,000 oo subscribe inaan gaaro. 10,000 markaa gaaro youtube way aqoonsana. hadda youtube ima aqoonsano. youtuberada kuma juri page-kooda, kama diiwaan gashni. just waxaa qof weli banaanka joogo aqbalaad sugaya inuu gudaha soo galo. sharuudii waan buuxiyay, dacaayad way ii saarantaa, laakiin 10,000 markaa buuxiso youtube warqad wuxuu ii soo diraa uu leeyahay hambalya, welcome to youtube. marka please 10,000 wax yara iiga dhiman bisha ramadaan fadligeeda waa ku baryaa. videogan ii share garay, commentina ka bixi, like-na ii saar. waa codsi walaaltinimo, amarna ma ahan. mahadsanid. marka isku day inaad wixii ku soo maray iska ilowdid. wixii kugu dhacay iska ilow. maxay u dhaceen lama dhahee, waa inaad dhahdid maxaan bedelaa. muhiimadu waa taas. shalay wixii dhaca way dhaceen. noloshu horumar ayay rabtaa, hor u socod ayay rabtaa, go-aan qaadasho ayay rabtaa. maalin walba waa inaad go-aan cusub qaadatid, maalin walba waa inaad horumar cusub samaysid, maalin walba waa inaad hore u dhaqaaqdid. sidaas darteed waxaad samaysaa walaashay macaaney, videogan aad iyo aad uu kuu anfacaa. haddaa rabtid dhul inaad gadatid. waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego, haddaad jeceshahay inaa maaragtay wax badan ka ogaatid dhulalka, sheerarka, waxaas videoyaal badanaa ka sameeyey. sabdi kastana waxaan soo galnaa live, ayaan soo galnaa. hadda ramadaanka dartiisa weli go-aan maanaan gaarin inaan wadaayo, inaan joojinayo. laakiin ramadaan markii laga baxo sabdi kasto 7 UK, 8 Finland, 8 Yurub aan dhehe, 9 Finland, 10 Africa live ayaan soo galnaa. gabdho fara badanaa noo imaadaan, dhulalka aad horumar badan ka sameeyey, og dhulalkas meelaha laga gato. ani iiga khibrad badan runta markii laga hadlo, ani aaday dhulalka iiga khibrad badan yihiin. laakiin waad ka faa'iideysaa. su-aasha rabta ayaana weydii kartaa.